kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo caalamka ka joogtaan iyo xilli walba oo ay idiin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkiina siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video horle waad ku mahadsantiin la joogayna ee fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay marka kugu horeysay aadna soo booqato ama aadna la kulanto subscribe noo saar kambaleelkana furo si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay aanu soo gelino hadii aad horay nooga mid ahayd ama aad tahay asxaabtii dib inooga soo biirtay hadaba aad baad u mahadsantahay mar kale ayaan ku leenahay maanta waxaynu fikirkeena iyo aqligeenaba ka dhiban doonaa video shalay amaba xalay uu soo duubay Sharma Boy oo kaga hadlayay cadaawadii hore ee u dhaxaysay ama dagaalkii hore ee u dhaxay oo dad badan aad uga daahsanaa oo kala jiray Daahir Calasow oo aad wada taqaanaan maxaa iska bedelay maxaa ahayd waxa uu u soo galay maxay tahay dhibka uu ka hadlayay maxaa kalifay xilligani in uu dhibkaasi uu ka hadlo waxaan doonayaa horta in aan laba iyo mid ka dhaxno videoga waa mid dheer oo 16 mirir ayuu soconaya laakiin muhiimadda ugu weyn aan ka soo qaadan doono waa laba qodob waana labada qodob ee ugu xasaasisaneed inta uu ka hadlayay muuqaalka aad baan run ahaantii uga helay sida uu uga hadlayna waxa ay ahayd si aan hore idin kula wadaagnay oo aan kaga hadalnay Sharma Boy oo ka raacay ragnimada markii uu raali gelinta uu bixinayay waana run ahaantii wax lagu farxo oo qofka haduu ka qaldan yahay iyo hadii aad ka qaldan tahayba hadii ay jiraan dhibaato si horin karaya dabkaas markaas shidan waxa wanaagsan mid kamid ah inuu tanaasul sameeyo hadii uu isaga isgaran waayana waxa aad u qurux badan inaad adigu garatid adigu in aad fahamtid waxyaabaha oo maslaxada ay ku jirto sidaas darteedna laakiin videoga xalay aad buu uga bedelnaa oo Sharma Boy waxa ka muuqatay caro aad uga hadlay dad badan oo horay ugu geystay gaf oo aysan fahansanayn waxa laga hadlaya ayaa waxa uu yiri deeq darajo ay culays saareen deeq darajana in uu saliim ka yahay dadka intooda badan inta aqliga u saaxiibka ah maalintaasi way ogaayeen laakiin waxaan doonayaa horta marka ugu horeeyo labada qodob in aan soo qaato mid ahaan ayaan idin soo hormarin doonaa waxaan idin soo hormarin doonaa sababtii deeq darajo in uu bixiyaa ku kaliftay oo dad badan markaasi ka dahsooneed anaga saa ka hadalnay bal horta marka ugu horeyso afka Sharma Boy aan ka soo qabano deeq darajo soo waxay ugu yiri ninaga shit wuxuu ugu yiri nina bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa sida soo daawateen Sharma Boy waxa uu sheegay deeq darajo xilligaasi in uu ku sugnaa qatar aad u weyn sidaas darteedna uu Sharma Boy ku amray in uu iska siiyo mid kale waxa jirtay videoga waa uu dheer yahay intaasi af ayaan idinkaga daba geyn doonaa Sharma Boy waxa uu markaasi sidaas u sameynayay raali gelinta iyo waxyaabaha uu bixinayay waxa uu kula jeeday ama uu ka waday ama waxa ku kalifay markaasi badbaadada saaxiibkii oo loo sheegay in hadii macnaha ka soo bixin waa raali gelin la dili doono wax walba ha ahaatee xaqiiqada dhabta sa Allah subhanahu wa ta'ala oo kaliya ayaa og oo waxaan xukmin karnaa laakiin sida ay markaasi wax u socdeen iyo sida ay wax ahaayeenba mid kale waxaan doonayaa in aan ka hadlo oo aan daba dhigo waxa uu sheegay Sharma Boy in ay dadka fanaaniinta intooda badan ay ku jiraan dhibaato qaar badanna uu ka hayo sirar kuwaasi waxaan leeyahay idinka iyo ragnimadiina ayay u taalaa Sharma waxaan adiga waxa ku dhihi lahaa qofka sida uu ku qanacsan yahay hadii ay dadkaas yihiin sidaas kuwa ku qanacsan adigu u daasidoodii taada markii aad ka hadashid waxaan doonayay in aad isaga aamusto shal ragnimada aad ka raacday in aad ka taagnaato Soomaaliya intay doonaan ha u arkaan balse adigu waxaad arkaysaa wanaag ka sii dheer meeshaasi iyo waxyaabo ka badan ayaad arkaysaa waxaan doonayay in aadan dib u soo hadlin oo halkaasi aad ku damiso wax walba ay tahay sab film marka videoga dhamaadkiisa inta uu socdo ayuu waxa uu ka hadlay sababta ku kaliftay ee bal mar kale in uu videogan soo duubo bal ila daawadaba ninka ilaa hadda uu dib taagay ahay kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu wali cagto oo noo saaran yahay oo nadabahaayo waxa waaye anigana ma aan shakhsi u dabahaayo waxa waaye ninka deeq darajo oo dhalinyarada walaalkayga waa aragteen waxa uu sheegay in uu wali aasan oo ka harin oo cagta u saaray hadda waxaan doonayaa halkaas inaan bidhaamiyo Daahir Calasow in uu ka hari waayo waxa kalifay YouTube-kii uu ka isticmaali jiray
ayaa YouTube-ka isaga oo isticmaali jiray ayaa ay hawada ka saareen oo waxa ka saaray Deeq Darajo waad ogeedeen codad waxa jira sir ahaa oo WhatsApp-ka laga soo duubay WhatsApp-kaasna codadkiisa dadka inta badan waa la wadaagay in badanna way arkeen oo waxa uu lahaa Daahir Cali Sow Deeq Darajo waxaad iga saartay ama aad hawada ka saartay YouTube-ka aan isticmaalay mana soo celin karaysid Deeq Darajana in badan ayuu ka hadlayay arrinka sida aad ka warhayseen midda kale waxaan doonayaa hadii ay markaasi ay yani carag gashay Deeq Darajo oo hawada uga saaray in sheekadana si kasta ay u danto darteedii aad wanaag badan u sameeysan ayaa anagu jeclaa sida horta ani ila quruxda badnayd mar walbana saas ahayd waxaan saas ku leeyahay anu mar walba waxaan ahay qof positive ah oo jecel wanaaga in waxaan jeclahay inaanan la isku dayanin oo hadii qof naga qaldama inuusan qofka kale oonan ku dayanin wax walba adduunyada way dhacayaan inta aad dul saaran tahay waxaad arkaysaa dad badan oo adiga gaf kuula yimaado waxaad arkaysaa dad badan oo adiga ku garab taagnaado waxaad arkaysaa dad badan oo wanaagaaga jecel waxaad arkaysaa lidigeeda dad badan oo adiga xumaantaada jecel maantadan aan wada hadlayno xalay YouTuber badan ayaa idin soo qaatay oo waxa ay sii falanqeeyeen sheekadii markaas ka hadlaysay ee dhacdaday ahayd hadii dhinac loo eego may qurux badnayn in ay intaasi qaarkood ba ku tarax tagay oo si adag uga sii hadlayay waxa qurux badan qof waliba maanta oo YouTuber ah wuu yaqaana wixii wanaag ku jiro iyo maslaxad ay ku jirto maslaxada waxa ay ku jirtaa sheekadan gibi ahaanteedba inta ay hore u soo martay in ay ku danto waxa kale uu sheegay in Axmed Rashiid nin la yiraahdo oo barnaamijka aad ugu jiray oo barnaamijkan oo aad u waday اوكي احمد رشيد waxaan doonayay in kaliya oo yani oo soo qaaday wuxuu u sheegay xitaa in uu soo qaaday YouTube-ka yani uga soo qaaday Daahir Cali Sow maadaama uu sharaftiisa u baqday ha u baqdo waayahay hadii uu soo qaaday oo isaga baqdin oo baqanaya ama si walaaltinimo la video doonama ha u soo qaada markaasi hadii uu soo qaado waxa qurux badnayd in meesha la isaga haro sheekadana ay meesha ku dhamaato maanta Sharmo hadii aad gacanta YouTube-kaaga aad ku haysatidna waxaan anigu jeclaan lahaa inaad gabi ahaanba aad ka soo qaadid waxaanan jirin Daahir Cali سونا هل كشيء كلي أو يدين دب جوج أنا ما أنتوا جران كرا سومالين تعقل جل هنا وين جران كرتا هو إن يوتيوب كيس أد هودا كسرتين ده قدر جنا وح أو شيء إنه أود قليها إنه يوتيوب كيس أو هودا أو كسو عليه وح قروح بدنيد مركا أما هو ناكسن إن أدب وعليه ما دام إذا كان أتكين هي ستان سلا سلا أي نبض كل عضو ده قدر جنا سحر نمر أو نولادو أدون سحر نمر أدون ولاتد نكاسنا أو نفس كهذا سدح دينا بس سلا أي إذا قروح بدن إن مر والبقرة قال له سحنا خير كما يمادو أنا واسد عن قبو Soomaali inta ila qabtana wad ila wadaagi doontaan iyo sida uu fikirkiina yahay waxaan ku leeyahay Sharmowha ooyin ninka ragga waxa ka oysiyo waa ciil laakiin waxaan ku leeyahay mar walbaba ha ooyin adkaysi muuji waxaadna ku dadaashaa arrinka markaas taagan inaad xal u sameyn karto sida ugu dhowna aad u xalin karto sida ugu dhowna aad macnaha u dhameyn karto aduu fanaan ayaa tahay horumar ayaad ku tilaabsanaysaa hiigsi kale ayaa leedahay maanta meel aad ku dagaalantid ma taagnid waxaan ku dhihilaa dagaalkani halkaas ku soo afjar hadii aad shal raali gelisan ragnimadaada ayaad ku raali gelisay ma ahan inaad daciif tahay dadka inta uu arka inaad daciif tahay waa inta ugu xun dadka waana inta ugu doqonsan laakiin inta nadiifka way ku fahmi karaan wayna ku ogaan karaan waxaana ku leeyahay sheekadaasi meesha ku dambiye sida aad u dhameyn kartaana u dhameey aad baad u maasantiin intaan fiidiyogan mid la mid ah Soomaaliya ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagay nabaadiino